asxaabta qiimaha qaayaha leh halkaad naga daawanaysaan waa dugaal runtii waan idin soo dhaweynaynaa asxaab badan oo nagu xiran ayaa WhatsApp-ka nagala soo xiriiray kuwa fikrado u baahnaa fikradahan siinay kuwa waxay naga soo codsadeen in muuqaalada qaar aan u share gareyno ama aan YouTube-ka ugu share gareyno waan u sameynay waan u share gareynay dugaal adiga iska leh aniga leh kulligeena wada leh waxaan rabnaa inaan soo bandhigno xog rasmi ah oo ku aadan fanaanada caanka ah fanaanada aan la holoolin karin Muna Xafiis runtii Muna Xafiis waxay kamid tahay fanaaniinta waayihii dambe ee ku nool kuwa Muqdisho ku nool ee aadka u soo kabacay ee dardarkana ku soo galay Muna Xafiis runtii waa qof aan aad isku naqaano waan isku fiicannahay waa mid kamid ah fanaaniinta aan aadka iskugu dhownahay laakiin xogtan waxaan ka helnay ayada afkeeda muuqaal ama warbixin ay waraysi ay bixinaysa ay ku sheegtay inay gabi ahaanba fanka iska joojisay ma ahan qofkii ugu horeeyay ee fanka iska joojiyay oo gabar Soomaaliyeed ah maadaama fanaanadu ay fanka iska joojisay waxaan leenahay soo dhawow waxaan u maleynayaa adiga daawanaya inaad tiraadid war qofkan wuxuu noo sheegayaa beentiis waay waxaan jirno naga dhacsiina bal aynu daawano Muna Xafiis oo runtii afkeeda ka cadeynayso in ay gabi ahaanba iska joojisay fanka sababta la xiriirtana ay tahay ninkeeda Muna Xafiis waxay fanka iskaga joojisay ninkeeda ayaa ka codsaday oo codsi ayuu u diray inay fanka iska dhaafto oo wuxuu ka codsaday iska daa fanka xaajigaaga ama seygaaga haduu wax ka codsadana waa la sameeyaa labada qof isqabana waa laba qof oo isku doorsan waa laba qof oo isjecel shalay jacayl isku guursadeen ayadanu waxay noqotay qof ama aqbasha amarka ninkeeda ama codsiga ninkeeda sarteeda fanka waa ay joojisay bal muuqaalka aynu daawano ay Muna Xafiis ku sheegayso inay fanka iska joojisay waxaana la joogaa fanaaniin qaali ah dadkii laga soo gaaray munka kamanda hadda la Karim dheena maxaa inta galaan okay walaashin Shabi Sharaf iyo walaashin Muna Xafiis iyo Najiib meena la Ramadaan markii la gaaray dadkii wax yahay waa iska dhaaftaano aan Ramadaan ka hor iska dhaafo kama saaratay ujeeda bad iidina way shaqeyntaa waa si aan waxyaabihi hore aan iska daayay maalmaha qorada xoga waa ka baxay ma sha Allah maroosh Allah xaajigeyga ma sha Allah ilaahay ku barakay xajiga salaamina Ramadaan Karim aan leenahay waxaan leeyahay xaajigeyga xalaasha Abdullaahi ma sha Allah Ramadaan Karim habiibi inkastoo ay ficnaanad in sambuuska iyo bijiha aad u duro ma sha Allah laakiin aad u dubtido ana ku soo dhakahay ما شاء الله منا أنا سيدنا وسلامنا علينا وسلامتها هاي ما شاء الله سيدنا هلا أنت رمضان ك وياهي taasi waxay ahayd Muna Xafiis fanaanada ugu kubka qurxooneed magaalada Muqdisho ayadii Shaadi Sharaf runtii Muna Xafiis markaad ka arkay muuqaalka in aad fanki ka baxday ama fanki aad ka dhaaftay aad ugu farxay Muna Xafiis runtii maalmahani dambo waxaa jiray buuq taagan dad qaar ayaa isku dayay inay inqilaab ku sameeyaan in hadad maqli jirtay wadamada qaar inqilaab lagu sameeyay laakiin Muna Xafiis waxa la rabay inqilaab in lagu sameeyo oo ninkeeda laga afduubto oo ninkeedii qowl kale ay u dhacdo laakiin waxay ahayd qof adag oo ninkeeda ku kalsoon haddii aad daawateen dugaal durdur media ayaa runtii waraysigaasi qaaday bal aynu soo qaadano muuqaalka ay kaga sheegayso in ninkeedii inqilaab loo geystay ويا Muna Xafiis Muna may maqlaysaa waa durdur media Muna may maqlaysaa waa ku maqlaa wala Xasan waa ku maqlaa fanaanad xasaanad leh bal screenshot kan sidoo ku imaaday wallahi kullu screenshot kan wuxuu ku imaaday aniga iyo ninkeyga oo Abdullaahi ah iyo Jabra bin Jabra oo adeerkay ah anu ka wada fadhino naagaas inta qoraal ay soo dirtay naagtii waxaan dhahnay maxay tahay naagta oo ka qabtay asoo la hadlay screenshot ka qaatay maqal ma jiraa waa idin maqlayaa si fiican wuu ka qabtay soo wacdo qoraal ay u soo dirtay waxaan dhanaatan maxay tahay naagta waqtiga banahay way ku soo noqonaysaa kaamira igu soo wacaysaa sawir ay soo diraysa aniga iyo Jabra waxaan dhahnay ka qabo naagta waxay damacsan tahay aan ogaano markuu saas uga qabtay screenshot ay ku xaday lambarkeedii aba magaceedii oo ciwaankeedii si aan loo aqoonsan way ka soo jirtay kulay sawirka habta arkay
كل نيكي قاونا ماشي كمان موقف وجهي سوق لي كم موقفة أنا قاونا ماشي كمان موقف وأنا معك لصادري وقرص لقى دنبي براد هذا الكاس marka ma ninka bay ka ceersanaysaa ma ninkay ku diidan tahay ma ninka bay ku diidan tahay ninka isku dayda inay suqaansato si ay yahay taas waxay ahayd munaxafiis runtii wax badan noo soo bandhigtay xog rasmi ah siinaysay gabar isku dayday in ninkeedii uu ay ka afduubato oo WhatsApp kala soo xiriirtay ama fadeexa inay ku sameysay rabtay munaxafiis runtii aad oo soo dhaweyneynaa ka dugaal ahaan waxaynu ku leenahay soo dhawow mar koowaad mar labaad mar saddexaad mar afraad ilaa 10 jeer soo dhawow fanki maadaama ka baxday waxyaabaha aad ka soo jiitay waxay tahay iyadoo bil Ramadaan oo soon lagu jiro munaxafiis inay tiraahday runtii markaan fanki iska dhaafay aad u qurux badnaaday oo sidii hore waan iska bedelay oo waa soo nuuray waa hagaag saas waaye soonka waa lagu nuuraa soonku waa nuur soonku waa nimco soonku waa naxariis izaaqada lagu badinaa marka fanaaniinta kalena saas dhigi lahayn hadda ka hor waxaan idin sheegay Shaadi Sharaf inay gabi ahaan iska dhaaftay fanka oo ay noqotay YouTuber dadka qaar waa iga beenaysadeen waxay ilaahdeen ninkan beentiis waa wuxuu noo sheegay malaan aniga waxa ku soo bandhigaya 98% waa xog ani hubo oo sax ah wax la hubaan ku soo bandhiga ma aha wax aan hubin ku soo bandhigo saas darteed munaxafiis si iska deysay runtii aadan soo dhaweyneynaa asxaab badan ay jirto oo ayagana runtii raba inay sameeyaan waxaan kaloo runtii hambaliyad tahniyad aroos ah aan u direynaa anigoo mas'uulka ah bahda dugaal ama team dugaal Saadiyo Siman iyo Seegeeda Zaki oo runtii caruur ugu dhashtay magaalada Nairobi dalka Kenya waxaynu leenahay ilmahaasi ha noqdaan kuwii runtii waalidkooda baari u noqdo kuwii lagu nasto saasaan dhihi lahayn ayadana runtii waa baraarujina waxaan jeclaan lahaa ayadana sidoo kale inay fank iska dhaafto gabdhaha inay fank iska dhaafaan haddii aad fank soo galaysidna runtii waxa fiican in aad tahay qof asturan qof dhoorsan aad tahay intaad asturan tahay ay dadka kalena ay runtii intaad qiimo naftaada leedahay ay dadka kalena ku qiimeynayaan anigu target kumihii gabdhaha Soomaaliyeed mana cambaareynayo laakiin wallahi markaan arko gabar Soomaaliyeed oo jirkeeda qaawan ama jirkeeda meel ka feeda marka arko runtii waa ka qiirooda aad ugu xanuunsada way gabadha aday ku lalatay anay ilalatay ani haday gabar ilalana waa hooyo ay dhashay meesha gabadhaas ay kamid tahay aan ka soo baxay marka waxaan dhiilayn gabdhaha Soomaaliyeed jirkiina astura wiilasha kale ay gabdhaha xumaantoodu faafinaayo magaalada duuduufina aydan waxaan leenahay runtii xumaanta joojiya oo gabdhihii ayada way ka dhashteen maalmo ka hor aniga waxay la soo xiriirtay gabadha ila soo xiriirtay oo igu tiray xaafadda ila degan tahay degmada waa bari ila degan tahay gabadha ay timaaday fanaanad waaye waxay tiray inaan hees soo qaadaan rabaa maalmahani muuqaalada heesaha soo saaray fiyuskooda aad u yar yahay 150 ma dhaafayaan marka tookada waxaan rabaa in kastuumo ama buuma haaf ah tinta soo qabeeyo aan rabaa idaaday si dadka badankooda ugu mashquulaan heesteedan fiyus badan ee u gaarto oo aan fanaaniinta la tartarmo ugu yaraan 1 milyan 2 milyan 3 milyan inay daawato waxaan ku yiri soo dhawow muhiimadu ma ahan in views aad hesho ama muuqaalkaaga ee dad badan daawadaan asturnaanta ku haysa daaw heesist hadii kale waxaan dhahay ayagoo dhanba iska dhaaf wax faa'iido ay tahay malan in jirkaaga qaawiso munaxafiis bal ay si nabadgelyo wixii tale iyo tusaalaha waxaad nagala soo xiriiri kartaan WhatsApp-ka telefoonka shaashada idinkaga muuqdo kaasaad nagala soo xiriiri kartaan waa bahdii dugaal media oo idin leh sida ay nabadgelyo haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar soo dhaweey haddii aad nagu cusub tahay oo soo dhaweynayna haddii anaga aan kugu cusubnahay soo dhaweey oo subscribe saar gambaleelkana taabo like tan ha ka xasdin commentigiina runtii aad ugu farxaa markaan arko haday noqon leed dhaliil iyo haday noqon leed amaanba oo waxa halkan aan u soo fadhiistay sidaas iyo nabaday